dhibaatada wadadan naga haysata dadka ay saamaysay aniga kamid ah qof buka lama arari karno qof dhintay kuma arari karno dhawaan iyo saacado ma gaarayno sheekh weedihi wada xumaan aawadi meel la meel noo soo maraabay wadada jarato oo iyadana gaadiidkan loo keenay ayaa marta wadadaasi waxay wado muddo dheer xiran ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono wada xumada ka jirta deegaanada koonfurta gobolka saaxil gaar ahaan tuulada Girni Godayar Godaweyn ila Carmo iyo dhammaan deegaanadaasi deegaanada hoos yimaada halkani waa tuulada Girni oo hoos timaada gobolka Saaxil dadka ku dhaqani tuuladani waa xoolo dhaqato beeraley caqabada ka jirta deegaankani ma aha wada xumo oo kaliya balse waxa ka dhiman baahiyaha nolosha asaasiga ah sida waxbarashada oo dugsi sare aanay lahayn goobo caafimaad iyo sidoo kale saldhig biliis deegaankan tuulada Girni ee degmada Sheekh ay xukunto deegaanka wadadu 30 sanadood cid waxba kama qabanin lamana samayn nooceedii weeye dhibaatada wadadan naga haysata dadka ay saamaysay aniga kamid ah halkan aan laga qaaday aniga leelaalaadiyay dhibaato badan bay wadadaas nagu haysaa gaariga lagu qaadaa dib weyn buu noo geystaa inta aanu tuurtuurayo oo kaliya noohooyin weeyaan waxa meesha jooga noohooyinka mar buu roobdaa roobabkaas way ka xidhaan dhiiri buu galaa maxay heetay halka inay naftuba kaga baxdo qofka ay ku sugan tahay ama isagoo serious ama dhiig baxay ama dib weyn ay haysato oo serious ligeeyo oo la gaaro dhakhtarka xagga xarun caafimaad iyo wadadan dhibta taagan imika dumar markii 7 bilood gaaraan in ay gaari halka ka raacaan aad bay neceb yihiin intooda badan halka way ka lugeeyaan dhibta ku haysa ruuxanka gaarigaas halku marayo dhibta ku haysa awgeed aniga waxa igala soo kulmay xaaskayga inaan qaaday oo dhiig ka soconayo markan 4 saacadood oo dhow sii socday ee aan arkay inaanay malaadbeena fiba gaarsiinaynin goob caafimaad Sheekhoona ugu dhow inaan dalbaday ambulance aan qori gaariga ma soconayo iga hor kaalay oo ambulance dhexdeeda hor yimu qaaday oo markaan qaadnay dabadna ay noqotay dhiig loo shubo dhibta noocaas ayaa naga haysata cidii wax nagala qabanaysa iyo warbaahinta baan u sheegaynaa imika xilligan dadku wuxuu ku jira duruuf adag waxa lagu jira xilli abaar ah biyihii way naga gooyeen beri dhaweyd booyada la soo dalbaday boodihii wada xumaan aawadi meel la meel noo soo maraabay waay duraasi iyo dirqi iyo qaali nuulkii biyaha lagu keenayay taa qaali gareeyeen maadaama yiraahdeen meeshii dib baa naga haysan ayaa loogu daray baalbay cunay abeesa la yiraaho markuu cunay gaari waanu weynay noo haysanay noo hada wada ma jirin meelaylan barta way weyday absi weyn bay heshay absida weyn gaadlaana wadeed iyo wada xumaan haysan marka dhowr iyo 20 cashaan oo qabe yaa gaadh sheekh la iga soo diray way qaaday dhakhtar buu geeyay waan ku badbaaday waxaan magaalada Girni qodob baabuurta wadaan oo hooyinka reer baan ku shaqaysanaa dadkan ugu adeegnaa waxaan qaadnaa ama dadka xanuunsanaya markaan qaadno dhibaato badan maraysta wadada halkan ilaa sheekh waa masaafo dheer runtii waana buur dheero dhibaato badan bay leedahay iyo dooxiyo ragaa kaan qaadno dhibta ugu badan ee soo gaaro shilimaadka nooli wax yar baan ka qaadnaa waxaan ka qaadno wadada dhibteeda baabuurta ayaa ama taayir baan dib u iibsanaa ama gaariga rabadho ama waxyaabo dhibta buurta ay keentay
ayay dib nooga galaan baabuurta tuuladan la yiraahdo Girni ayaa la iga qaaday aniga iyadoo aad ku xanuunaya aad ka go'aan markii gaariga la iga qaaday wadada dhagaxa badan leh iyo godka faraha badan leh leemariyay kolba waa la iga rogayay anigoo aad u dhibaataysan oo la liita wadada xumaanteeda ayaa kooma sii gala haddii wada la helana wax kasta waa la helayaa hadda waxaanu ka dhaqaaqaynaa tuulada Girni annagoo u sii jeednaa tuulada Godayar intii aanu safarka ku jirnay waxaanu sii marnay dooxyo taas oo aanu kala kulannay dhibaato dhanka socodka ah dhagaxaan dhadhaabya oo aanu dhaafitaankooda ku raagnay waa caqabadaha aanu la sii kulannay intii aanu ku sii jeednay Godayar halkan waa tuulada Godayar anigu waxaan ahay haydhmaankeedii waxaan ka hadlaynaa waxa weeye wadadii Sheekh ilaa dawladii Faqash cidimay taaban degmada Sheekhna may taaban gobolka Saaxilna waxba ka qaban galbeedka Sheekh waxa wado soo baxday ma jirto wadada markii ugu horeysay la doonayay ee magaalada u ahayd tacmiirta gobolka Saaxil ku xidhnayd annagoo gobolka ka tirsan horta wadadaas way go'aantay markii ugu horeysay anigoo ku hadlaya afka hooyooyinka uur kale caqabada ay nagu haysato wada xumada gaadiidka ka hor hooyooyinku waxay tagaan ka hor intaanay markay soo dhameeyaan xilliga ay ku jiraan xilliga foosha ama 9 bilood ay galaan goob caafimaad taasoo ay sababayso dooxyada oo xidhma caqabadaha buuraha oo daakiraad ku keenta taasoo hooyadu ka baqanaysa in gaariga ku sii dhex dhasho ay caqabada kala kulanto ka hor bay tagaan goob caafimaad wadada markaan mari kari weyn waxaanu ka leexnaa meel la yiraahdo bato 300 kilomitir baan soconaa gaadiidkayna dhibaato ay nagu hayso halkan dhibaatadana haysato noolkaanu ka qaadnaa waxa ogaadeen ugu ma qaadno waana wada xumada haddii geeda yihiin iyo haddii wax kale yihiin waan ka wahsanaa meel kale u bayrna waxa weeye waxaanu leenahay dawladda waxaan ka codsanaynaa cashuur bay naga qaadaa shiikh baa naga qaada berbera naga qaada wax la waxaan uga qabataa ma jirto waxa laga yaabaa in waxa la mooday inaan kuma tirsanaynba aanu ka mid ahay dadka godoon baa ku dhaca godoonkaas oo ah wada xumada shiikh iyo u dhaxaysa go'o waxaanu doonaynaa in waxna looga qabto wadada wixii danaynaya ama dawlad ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama dadka qurbaad jooga ha noqoto waxaanu jecelahay wadada in waxna looga qabto inaan imika markaanu u baahano in Burco la qabto waa wareeg marka Hargeysa la qabtona waa wareeg shiikh baa noogu dhowo dee shiikh wadadiisu way xumaatay dooxada boqolaa qaaday awood gacmeed waanu tahli kari weyne cagafna waanu tahli kari weyne waa taa idiin muuqato waa boqolaha cas waa laba qow daadun baa iska mara inta yaran halkan ku beertaana way go'aysaa oo daadku iska raacaysa annaga waxaa saameyn weyn nagu yeeshay oo na baabiisay wada xumo waxa la yiraahdo aakhiray noo riday wada xumadu qof buka lama carari karno gurmad meel qof dhintay kuma carari karayno dhawaan iyo saacado ma gaarino shiikh 12 saacadood bay nagu qaataa shiikh iyo goroorinta inta u dhaxaysa socodkeedu waa mashkilad soo jireen oo na haysatay faqash ba ogeyd dawladdii hore burburtay Soomaaliland madaxweynayaal badan isaga dambeeyay baa og bulshada caalamka iyo dadka socdaalka ee wadooyinka magaa og dhibaatadaas waa mid naga tegi weyday waxaasoo kale maanta uu soo rogmado deegaanku xaggaasi ku badan yahay halkaa daad baa maraya halkana ardaydii baa ku jirta iskuulka bay dhiganaysaa maxaa daba jira kala gadoon baa kii araabi lahaa iyo kii iskuulka ka tegay gurigoodii qaban lahaa iyo kii soo socday iyo xoolihii daankaa joogay mid walba gadoon baa ku jira waxa uu ahaa safar qaatay 3 cisho oo isugu jira guure galab carrow iyo kalahaad waxaan u qalab qaadanay sidii aan xog idinku soo gudbin lahayn ku saabsan wada xumada ka jirta qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Saaxil waxaanu banaan buur
iyo dooxyo ay adag tahay ku safridoodu. ma aha kaliya tuulooyinka yaryar waxa bilaa wadada balse waxa la qaba degmooyinka waaweyn. halkani waa degmada Godoweyn oo waayii hore ahaan jirtay xarun ganacsi waxaana mari jirtay wado weyn ka hor inta aan la marin wadada marta Berbera iyo Sheekh, balse imika waxa haysata dhib dhanka wadada ah. magacaygu waa Cabdilaahi Cabdi Cali, gudoomiyihii degmada Godoweyn. labadaa waa ka fiicantay waxbarashada iyo caafimaadkaba inta awood degma ay leedahay ahaanta way ka fiican tahay. caqabada ugu weyn ee degmada haysa waa laba qodob horta ay weeyaan waa biyo la'aan iyo wada la'aan. wada la'aan iyo biyo la'aan baa labada baahiyooda ugu weyn. biyo la'aan sanad walba jirta ويوم حالة جودة كمان كلها أنا قصمر بس الولبة تاجبها ومرة داري فينا لهين ما هو وين أنا لهين وكذا بيلعت وين بتشوكتا مركا جودوين ودمو كوفر قلبي حتى جوبا كساحل بينا ولبة وين نجي هاي وضح مدو داري بكتلاش شيخ أبو وبور يملح يضح هذا استلادو معاه هذي ساحل بالبرقبة وحقن كذا على وكسر درتها مركا عقبت داشت حماده هو تنوين مركا دين عول با معاه هذي كتاجن runtii anaga sida gudoomiyu sheegay waxyaabaha halbowlaha ah ama laf dhabartahay waxa weeye biyo la'aan iyo wada la'aan. biyo la'aanta maruba laga bixin insha Allah ama raxmaadkiisa Ilaahay noogu roonaan ama deewala dadaalino waynu ka bixin laakiin tan kaliya halbowlihii waxa weeye ee dhaqaalihii ku xidhan ee mid caafimaad ku xidhan ee mid waxbarasho ku xidhan ee mid environment kale ku xidhan waxa weeye wadada waa wada la'aantii waa hunguri cadkii wadooyinku hadii ay gadoon aad ka noqoto marka runtii degmadan iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada waxay gadoon ka yihiin wadooyinka. waxaan anagu isku tashanay hadii aanu deegaan ahaan nahay oo aan iswargelinay in aanu ka qayb qaadano hadii xoog tahay qofkii xoog kaga qayb qaadan karaya kii dhaqaale kaga qayb qaadan karaya inaanu ka qayb qaadano ayaan isku wargelinay. wada deegaanka tuulada isku dar wadada waxa la yafaar xaashi Cabdi Cilmi waana beeraleyda ila gobolka Saaxil degmada Sheekh furo isku dar marka sharci soo go'o dalagu soo go'o caqabada ugu weyn hortaada waxa weeye waa wada la'aan marka goboladii geyn lahayn bilaa Hargeysa oo kale ama Burco kale wadada wax xanibaad marka daad yimaado mar walba wadiiq yar weeyaan mar walba waa go'an halkaas ku xanibnaan moogta marka waxaan u baahanay baahi weyn aan u qabnaa waa wadada. qurba joog iyo dad ka damqaday dadkii iyo deegaankii qaranku ku badbaaday waayadii hore ayaa sameeyay urur lagu magac daray gacan libaax organization community kaasoo bilaabay inuu wado u sameeyo deegaanadaasi. hadda waxaan u jihaysanahay deegaanka ila Carmo oo ay geeyeen qalabkii ugu horeeyay ee wadada lagu bilaabi lahaa.
halkani waa deegaanka Ilcalmo oo ka tirsan degmada Mandheera oo hoos timaada gobolka Saaxil sida wada arkaysaan waxa ka socota hawl ballaaran waxaana la qodayaa balli waxaana bilaabay ururka gacan libaax organization community oo ah urur iska wax u qabso ku bilaabay mashaariicda ka socota deegaanadani marka la dhameeyo balligani waxa iyadana si toos ah loo bilaabi doonaa wadada Jarato ee isku xidha Berbera Godaweyn Godayar Girni Sheekh aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Salebaan Cali waxaan ahay ninkii cagaftan waday dhaamka qodaysa deegaankan aan ku sugannahayna waxa weeyaan deegaanka Ilcalmo oo ka tirsan degmada Mandheera gobolka Saaxil hawshan halkan aan ka wadnaa hadeer waa dhaamkan ayaan marka shaqadan bilowgan ayaan bilownay waa aragtaan halku marayo waa 100 mitir area square wadada ayaa iyadana dhinac marta time ka inoo muuqanaysa wadadii Jarato oo iyadana gaadiidkan loo keenay ayaa marta wadadaasi waxay wado muddo dheer xiran lagama daadigin ilaa iyo waqtigii maxay talay ka dambeysay wadankan qabsanay ilaa 1990kii ugu dambeysay gaari mara haddii uu marana gaari linkaruusa loo deekaa qofku mara ayaa mara wax kale oo ka daadiga ma jiraan waana wadadii deegaankan ma garanaysaa waxtarka weyn u lahayd gaar ahaan deegaankan maxay talay ilaa Goo ilaa maxay talay dari mara maxay meesha kale la yiraahdo iyo fariisinka dhagacade wadadu deegaanka u dhaxeeya Go'da weyn iyo ilaa iyo Sheekh way gashaa farhaaraha bixiso dhinacyada kala leexleexato hadaynu burcadona waa ka galeynaa hadaynu gacan libaax iyo dalxiis ku baahno waa laga galaa haddii isku dar loo baahdo tanaa gasha haddii maxay tolo goyar loo baahdo tan baa gasha ya haddii loo baahdo maxay tolo dal dawan iyo ma garanaysaa inta ood weyne ka soo sareysa teeyadun baa gasho wada waa marka dheedmaan dhulkaas oo dhannayntiisa badan wax niban yahay iyagana gaadiidkan waa la keenay wax loogu talagalay wadadan inay furaan deegaanka le wadada loo soo iibiyay dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay cagafyada iyo ma garanaysaa ay qaabilaan markay soo gaadho deegaanka wax badan bay u qaban doontaa wadada way u furi doontaa barkaday ku qodan doonaan dhaaman baa loogu qodi doonaa waxaan u sheegaynaa deegaankuna inay iyagu gaadiidka leeyihiin gudahiyo dibadba inay ma garanaysaa wixii faranteere ma garanaysaa la gelinayo bahalaha inay ka qayb qaataan taa deegaankaanu ma garanaysaa ugu baaqaynaa ta kalena wixii ma garanaysaa dowladdana wixii deegaanku xaq ugu lahaa inay ma garanaysaa ay ka helaan oo iyaguna ay ka doontaan oo cagahooda inta ku socdaan ay ka doontaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay hawshaa wixii ay nagala qaadanayso inay fududiso maxay talo ee wadada ma garanaysaa ku saabsan halkan aan taaganahay waxa iga dambaysa imika mid ka mid ah cagacagafyada dadka qurba joogta ee ka soo jeeda deegaankani ay ugu tala galeen inay kaga shaqeeyaan wadada sidoo kalena ay ugu qodaan baliyo Ilcalmo Godaweyn Godayar Girni iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada cagacagaftan iga dambaysa waa tii wadada waana tii dhulka iyo dhagaxaanta jabinaysay waxaana ku jira dumbihii lagu tala galay in dhagaxaanta lagu jabiyo walkan waxa weeyaan deegaanka Ilcalmo oo hoos taga magaalada Berbera anigu waxaan ahay heerkii magaalada anigu waxaan ka soo jeedaa beesha ugu xildhibaanada badan leh 12 xildhibaan baan soo saarnay haddana wadadii wali xildhibaano iyo mashaariic midna ma yihiin waxaan leenahay wadada nala bilaabo nala furo nala shaqeeyo inta waxa noo dheer dhaamku waa ka waxa loo baahan yahay sabarkii in loo hawl galo iyo gurigii taangigii iyo qasabadihii wadada reer male waa wadada Soomaaliland oo dhamilaada marka ilaa dawladda ilaa shacbiga inuu hawl galo halkani waa dawga Jarato dadka degan deegaankani waxay ka doorbideen inay maraan wadadan dhow 75 kiiloomitir oo soo wareega
15 kiiloomitir waxaa halka ay nagaga beegan magaalada Abdaal. Rafka iyo dhibaatada ka jirta dowgani jarato waa mid aad u dhib badan. Dadka deegaankana waxay kala kulmaan dhibaatooyin dhanka gaadiidka. waxaana godoonsan dhammaan deegaanada dhankan kaga beegan gobolka Saaxil. dadka deegaanadani waxay dirayaan baaq bulsho iyo mid dawladeed si ay u helaan wado. maamulka dawladda hoose degmada Berbera waxay ballan qaadeen $100,000 oo ay ku dareen miisaaniyadii 2022 balse wadadii bilowgii waxay u xaliman tahay lacagtaasi ay ku deeqeen maamulka dawladda hoose degmada Berbera. maraanu isku daynay inaan wax ka weydiino arrintaasi wax jawaaba kama aanu helin. daawadayaal barnaamijkan waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Wardi iyo muuqaalada quruxda badan oo uu duubay Mubaarak Mario. Audio Jungle.